waxaa la isweydiinayaa barnaamijkan yaad ugu tala gasheen horta ma dhalinyarada aan horay u guursan kuwa guursaday bal in dadku laftirkooda su'aalo badan bay iska weydiinayaan in la ogaado horta barnaamijkan intaan su'aashaada ka jawaabin waa barnaamij caalamka ka jira waddankeena ayuu ku cusub yahay Soomaaliya laakiin caalamka islaamiga guud ahaan barnaamijkan uu ka jira dadka tagay ayaa og oo wadamadaas adduunyada banaankeeda u safray inkastoo dhalinyaradeenii ay kaftan iyo ka dhigeen maadaama aqoon badan aysan u lahayn barnaamijkan teknolojiyadana in laga faa'iideysto oo dhinac walba looga faa'iideystay muhiim tahay haddaan u soo laabto su'aashaadii barnaamijkan waxaa loogu talagalay dhalinyarada guurdoonka ah nolosha guurka ku cusub haasawaha ku jira oo dooqu ka wareeray ama aan waliba wax dooqan iyo guud ahaan dadka reeraha laftirkooda wax ka mancinaya ma lahan ninka halka xaas leh waxa dhici karta tii labaad tii saddexaad tii afraad inuu ka heli karo wax diidaya ma lahan marka barnaamijkan waa barnaamij haddii aad guurdoon tahay oo sifa sharci ah ku socoto oo sharciga kugu ogol yahay oo aan afar xaas la ahayn ama aadan fawdo iyo ciyaal suuqnimo kale iyo aad wadin barnaamijkan diyaar ku yahay adana lagu talagalay qofka marka ma ku jirtaa qaab ah in qofka markaas soo gala application-ka ee soo dalbada shuruudaha buuxiyo ma kaliya waxa uu ka ekaanayaa gabadha markaas ay meesha iska dhex xushaan inay shukaansadaan ama hasaawaan mise qofka wuxuu xor u yahay sida social media kalaba ka jirta in qofka uu doonaba uu la hasaawo maya application-ka uu ka duwan yahay sidaas wiilku gabadha uu rabo inta gabadha uu rabo ma raadin karo gabadhuna inta wiil ay rabto ma raadin karto marka hore shuruudaha waxa kamid ah horta systemka waxa ku diyaarsan dhammaan wixii laba qofood ay isku xiran lahaayeen oo tilmaamo aha oo dhan ku jira wixii aan ku jirin qofku uu soo qoraya asaga soo dalbanaya marka ugu horeysa waxaan u ogolaanay maadaama tilmaamo ay wadato gabadhii wiilkiina uu tilmaamo wato gabadha uu mustaqbalka la wadaagi rabo tilmaamo uu ka rabo iyo sifaadaha jira gabadhana sidaas oo kale markii ay soo gudbiso waxa hadduu wiil yahay wax gabar systemka ku jira guurdoon ayaa waxa loo keenayaa systemku u keenayaa gabadhii ugu dhaweyd shuruudihii uu dalbaday ama tii laga wada helay shuruudihii uu dalbaday gabadhana sidoo kale marka qofka waxa lagu talagalay haddii uu ka soo waayo shuruudihii oo qofkan wixii uu sheegto ay run noqon weyso oo ku soo hungoobo ama gabadhii ay weyso wixii ay rabtay dib ay u soo laaban karaan systemkii oo systemka laga joojinayo ma waxaad ula jeedaa xogta qofka oo buuxdo oo Axmed Geediya oo aan aqaano in magaciisa sawirkiisa aqoontiisa dabeecadihiisa dhaqankiisa oo dhan meesha ku daabacan yihiin oo qofka ogaan kara mas'ala qofka waxay ku xiran tahay in uu su'aalo qofka markaas uu rabo inuu la hasaawo horta xogta laba nooc ah midna waa qofka personal information-kiisa ayuu soo gelinayaa magaciisa meesha ku dhashay da'diisa waxbarashadiisa hadduu wax baran xitaa meel uu dooranayo waxbarashada aniga wax ma baran ah ayaa jirta formkaas marka hore waa personal information labo xogta labaad qofkaani markuu xogtiisii informationkiisii asaga u gaarka ah soo buuxiyo wuxuu wataa saan ku sheegay tilmaamo gabadha uu nolosha la wadaagayo uu ka rabo tilmaamahaas soo buuxinaya oo meesha ku diyaarsan gabadhuna sidoo kale tilmaamihii buuxinaysaa waa intii ugu muhiimsanayd tilmaamaha qof lagu xulan lahaa hadday diin tahay hadday qurux tahay hadday midab tahay haddii ay maxaa la dhahaa sheeg culays iyo kg tahay haddii ay dhirir tahay haddii ay gaabni tahay dhammaan muwaasafaadkii qofkan laga rabo inuu qofkan ku xisho ayaa systemka horta lagu diyaarshay oo ku diyaarsan markuu soo buuxiyo systemka asaga shaqaynayo asaga matching samaynayo xitaa qof bilaadan ma samaynayo markii xogta labada qof ay soo buuxiyaan isaga shaqaynayo oo isku aadinayo labada qofood labadaas qofood marka waxa laga rabaa qof walba qofka kale systemka isku doorayo systemka wuxuu isku dooraa systemku xogtii ay buuxiyeen ayuu raacaya systemka xog khaldan ma raacayo wixii aad soo buuxiso cidii aad ka rabtay ayuu kugu aadinaya kugu raadinaya gabadhana sidoo kale marka systemku waa qaabkaas u shaqaynaya haddii qofkani uu sidii rabay u noqon weysana qofku marka uu systemka dib ugu soo laaban kara ilaa uu ka helayo qofkii uu rabay sidoo kalena waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah Ibrahim inaan kula wadaagaan rabo xogta qofku waa wax qarsoodi waay nin kasta oo systemka soo galo gabdhaha xogtooda ma wada arki karo gabar kasta oo systemkan guurdoon soo gashana xogta wiilasha ma wada arki karto waa aadan u ilaalinay Soomaalidu waxay jeceshahay labada qofood oo haasaabo ka dhaxeeyo inaan xogtooda la ogaanin ilaa ay soo shacbaxaan oo ay ku heshiyaan guur oo reerkii loo tago oo la dabaaldego oo arooskii dhaco oo nikaaxi dhaco inta ka horeysa waxay jecel yihiin in waxa la dhahaa wixooda qarsoodi ahaado marka systemka waxaan ku salaynay barnaamijka guurdoon dhaqanka Soomaalida annagoo akhlaaqdii islaamka kulli ilaalinayno marka xogta qofka gabadha wiilka intaba waa qarsoodi waxa is arki kara kaliya labada qofood oo haasawaha ay sheekooyinka